xilli maanta hadalal badan oo islaam ah oo Soomaaliya ka mid tahay looga dabaaldegayo maalinta koobaad ee Ciidul Arafa ayaa qaar ka mid ah gobolada dalkeena Soomaaliya aan maanta laga ciideynin inta badan degmooyinka Galmudug maanta wax ciid ah lagama dareemayo marka laga reebo in madaxda dowlad goboleedka Galmudug ay direen hambalyo ku aadan maalinta koobaad ee Ciidul Adha Dhuusamareeb Cadaado Kurceel Matabaan Balanbale Cabudwaaq iyo deegaano kale oo ka tirsan bartamaha Soomaaliya ayaan maanta laga ciideynin Dhuusamareeb Kurceel Cadaado iyo Gaalkacyo ayaa dhowr masaajid oo kamid ah saakay laga oogay salaada ciida balse inta badan bulshada degmooyinkan ayaan ciidin maanta madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Galmudug ee ku sugan Dhuusamareeb ayaa kuwa maanta la iiday dunida inteeda kale madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid gudoomiyaha caasimadda Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow iyo madax kale ayaa salaada ciida waxay ku tukadeen masjid ku yaala gudaha xerada NG الله أكبر أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا khilaafka la xiriira kala ciiditaanka iyo sidoo kale dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa kuwa iska caadi ah markii ay joogto Galmudug waxaana sidaan oo kale marar hore u dhacay khilaafyo lagu kala ciiday dowlad goboleedka Galmudug Farxaan Axmed Cabdi Universal TV Dhuusamareeb